قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: المسائل الثلاث. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أصل الدين وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا متقبلا. درسنا يا أفراد ويان كتابك الواجبات المتحتمات المعرفة. waxaan ka bilaabaynaa maanta aan qaadan doonaa insha allahu tacaala saddexdaa masaladood. laakiin intaana saddex masaladood aanan gelinin ka hor waxaan rabaa inaan masaa-ishii hore, waxaan mualifku raxmatullaahi calayhi 4 masaladood ayaa casharkana ugu dambeeyey. 4taa masaladood oo u kala soo baxay suurat lcasri ayaa u kala soo baxay walcasri. waxaa masalada koowaad waxay ahayd masalat liimaan, laakiin mualifku wuxuu qaaday inuu yidhaahdo alcilm. aayadda qur-aankana waxaan idhi waxay tiri ila aladiina aamanuu aliimaan waliimaanu acamu min alcilm. cilmiguna inuu wasiilo u yahay waa dhici karta, laakiin iimaanku saddexdaa xataa masaladood waxa weeyaan wuu ka caamsan yahay. saddexdaan masaladood waa macrifat ullah subxaanahu wa tacaala aw aliimaanu billahi caza wajal, waliimaanu binabiyihi muxamedin sala allahu alayhi waalihi wasalam, والإيمان بالدين الإسلامي. saddexda masaladood waa nooc ka mida iimaankii ka mida weeyaan, aasaas ee mixwar now ah. wailaa iimaanku waa ka caamsan yahay intaan maaragtay. iimaankana shardi ay tahay in qofku cilmi u leeyahay iimaanka, san maarata hore usoo marnay biladilla inuu maaragtay ku garanayo iimaanka. soo sax maan jamaaca? marka waxaan idhi aayadda iyo istinbaadka sheekhu way kala caamsan yihin soo maha. waxaa caamsan maaragtay aayadda, laakiin masaa-isha tarkiiskii xoogga saarayo unbuu kala soo baxay. waa labo. masalada labaad oo ahayd uu la soo baxay aayadda ka qaatay waa alcamal. camalka waa meeshan loo jeedaa aayadda qur-aanka camalka ma idlaaqin, sax soo ma? camalka waa sifay ku qayday. maxay taa sifada lagu qayday aayadda? الصالحات وعملوا الصالحات. العمل الصالح آيادا كم فانسان مركا آيات زيادة وحي واتاه آد مارت مهم لأنه ليس العمل ليس كل عمل مطلوب. عمل كستا لدون ما لكن عملك لو تشيده قرآنك وأن يكون العمل صالحا. عملك عمل وناك أستن إنه يهي عملك وناك أستن إنه شروط سواء ميقا محا شرط عملك إنه صالح نقضه. ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. يعني عمل مركان لأنها لابد أن يكون عملك إلهي وجهي سوسافي بيهي. عمل كاسنا وإنه سيد وسقنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه. سيد أساسك عملك وشروطي أساسك أي كمدين. وأنا أكره شروط كلا إنه عمل كلية صالحة. إنه الزمن كيس يكون مثلا وقت لو قلت تلقى لي هذا عمل صالح، هذا حتى عقيدية هي. وإنه قبل غرغرة أي نقطة صح ما هذا العمل سميسو أنت نفط بارت مركي كان عرفت
waxba lagaa yeeli maayo waa inay maaragtay intaad nooshahay oo awoodda leedahay ay socotaa acmaasha kale dhammaantood waxaa shardi ah waqtigeedii camalka loogu talagalay inuu yahay waxaa dhici kara camalka saalixa shardi kale saddexaad inuu loo sameeyo inuu yahay jinsigii la jideeyey waxuuna soo gelaya camalkii maaragtay si loo jideeyay taas uu soo gelaya almuhim shuruudaas ilaa 6 shardi oo kale maarta ayaa lagu sii daraa oo maarta camalku inuu ansaxo tusinaya طيب ومثل العمل والعمل والعمل به waxa weeyaan marka camalka saalixa ayay ayadu tiri midka saddexaad oo ka qaatay ad-da'watu ilayhi soma ad-da'watu ilayhi ayadana afirino ismu qarayno ayadu maxay leedahay watawaasaw bil haqq marka ayadu ad-da'watu ilayhi mitri masa watawaasaw ya labada lafdi keeba caamsan marta tawaasaw sax waxay noqon kartaa tawaasaw waxay noqon kartaa ad-da'watu ilayhi dadka in loogu yeero soo sax maaha qof kale aad ugu yeertid inaad maaragtay faafisid maaragtay tawaasigu laakiin waa ka sii caamsan yahay intaas waa ka muhiimsan yahay xaqiiqatan leanna tawaasigu dacwo kale ma ahan waxuu ku tusinayaa saan sheegna waa mufaacala maaragtay qofka kale inuu u sheego kan xagga dad daaciga ah dadka u yeerayaan asaga laftii loo sheego xaqa maaragtay noqoto isu dardaaran xaqa la isu dardaarmo وسائل fara badan way ku dhici karaysaa dacwada lafteedu wasaa'il badan bay ku dhici karaysaa daayna la qoro in ma garanaysa la waaniyo in noocyal fara badan baa dacwada ayaa lagu gutaa oo kala duwan ee wasaa'il fara badan waxa u soo haray marka masalada as-sabru ala al-adha fihi wa tawasaw bis-sabri tamaman ayadu waa waafaqsantahay المهم masalada intaasaan uga baxayaa tacliiqa yarka ah waxaan gelaynaa masaa'il athalath nuskhada kitaabka waa kala duwan tahay waxaan arkay inay maartay nusqooyin farq u dhaxeeyo marka nusqadan aan haysano daabacad aan haysano noocan baan idan la soconaynaa almasaa'ilu athalaathu horaan usoo tilmaamnay athalaathu in la yiraahdo sababta keenta horaan u tilmaamno sax soo maaha sababto macduudka mufradkiisii baa mu'anaf ahaa oo ahayd mas'ala yaa watay almuhim marka waa almasaa'ilu athalaatha alwaajibatu cala alkhalq inaan la yidhahdo saddex masalood oo waajib ku ah uunka waajib ku ah in ay maaragtay xataa muuminiinta kaliya maaha muslimiinta kaliya maaha qof kasta oo mukallaf ah saddexdan masaladood waa saddex masalood oo aasaaska maaragtay ictiqaadka dhan maantiis ah oo waajib ku ah masalada hore waxa weeyaan in maaragtay waa alrububiya ilaahay rabbinimadiisa subxaanahu wa tacaala in la qiro jala wacala ay la socoto waliba masalada oo maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilahay rasuul soo diray masalada labaadna waa masalad altawxiid oo ilahay cibaada loo keli yeelo subxaanahu wa tacaala masalada saddexaadna waa masalatu alwalaa walbaraa la yidhahdo weeyaan in laga maaragtay beri noqdo ciddii ilahay ku kufrisay subxaanahu wa tacaala ciddii muuminiinta la jeclaado saddexda masaladood oo mixwarka ama aasaaska diinta islaamka u ah ayuu maaragtay soo kaxeeyey saddexdan masaladood masalada koowaadi wuxuu ka bilaabay masale macruuf alxamdulilah muslimiinta agtooda waa musalla laakiin masaladaas ma ahan maanta masale musallam ah dadka ku nool koonka maaragtay xataa ardada iskuulaadka dhigta macalimiintooda iyaga deegaanka hadda aan ku noolnahay kitaabka markaan maaragtay deegaanka ku akrinaysid baa masaa-isha muhiimka ah deegaankaas baa asalka ayaa ah cudurada yaalla ay ka mid tahay maanta ilaahay jiritaankiisa la inkiray subxaana wa tacaala inta adtaystayaasha ah oo koonka maanta joogaahi xoog bay leeyihiin mu'asasooyin bay leeyihiin ururo xoogna bay leeyihiin dhaqaalay leeyihiin waxbarashadii bay haystaan caruurtana wax u dhigaan marka masaladaas waa masale khatarteeda leh weeyaan inkastoo muslimiin hadday nahay masalada musallam agtanada ka tahay masale aan maarata muran lahayn weeyaan bal qofka uu dhihi karayo masaladan maxaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay khaaliq ama rububiyada ilaahay in laga asalkaba muran laga keenoba maskaxda caqliga ka fogta u dhihi kara qofka muuminka muslimka ah u dhihi karaya laakiin aan aragno aan ku socono insha allahu tacaala waxa uu mualifku raxmatullahi calayhi wuxuu leeyahay saddexda masalood alula masalatu lula masalada hore wa ana allaha biana allaha ilaahay khalaqana inuu ina abuuray subxaanahu wa tacaala oo warazaqanaa ilaahay ouna biilay jala wacala oo walam yatruknaa alla uusan inaga teginin jala wacala hamalan xaala kownina hamalan annagoo maaragtay aan nala xanaanayn ayaa odhan karayaa annagoo nala xanaanayn ou ilaahay subxaanahu wa tacala inagama teginin bal arsala waa soo diray
rasuulan rasuul buu ilaahay noo soo diray subxaanahu wa tacaala faman ataacahu qofkii ateeca rasuulkaasi u dhegfudaadoo maqla dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa waman casaahu qofkii caasiya amarkiisa diida ku gacan sayra dakhala annaara naarta ayuu gelayaa masalada hore midaas weeyaan athaaniyatu masalada labaadna بأن الله إلهي لا يرضى رالك معها أن يشرك إلا لو وداجيو معه لجرن كيس أحد عندنا إلا لو وداجيو في عباده إلهي عباده سبحانه وتعالى لا ملك مقرب لا يرضى أن يشرك معه ملك مقرب إلى رالك معها العباد الله قدره ملك لدويي ولا نبي مرسل يا نبي الله صود ريبا إلى رالك معها العباد الله قدره سبحانه وتعالى وتوحيدك إلهي وكإله كل عبادة لسيه. المسألة الثالثة وحويا الموالاة لله لله ولرسوله وللمؤمنين. الثالثة مسألة سدحادي وأن من أطاع بأن من أطاع الله من أطاع الرسول وفق الرسول كأطيعي عليه الصلاة والسلام ووحد الله إله عبادة كلي يلي لا يجوز مبنانا له أسقى موالاة من عد إنه تعلاضه حاد الله قالوا بي يا ورسوله ورسول كيس ولو كان هبا هذا أي المحاد قالوا بي هبا نقطة أقرب قريب مدك وقدوا هبا نقطة وسدح مسألة أو مارتي أساسك كلمة توحيد كو تسنيسو أساسك دين الإسلام كمحور كيسي أويا. الأولى مسألة ظهراء مركا عن حوغا شرحنا المسألة الأولى مسألة أبوه الرئيسة وأساسك قفك وحو أنصحيا iyo wax u soconaya midna ma jirto saddexdan mas'aladood haday ka oo ka qaldamo marto waana mixwarka iyo asaaska diinta islaamku ay ku dul wareeganayso dhamaanteed weeyaan mas'alada koowaadi wa anna allaha ilaahi ba khalaqana in abuuray ilaahayna uu abuuray ma cid ka murmaysa ayaa jirta cid ka murmaysa ma laha ilaahay inuu abuuray subhanahu wa ta'ala laakiin saan sheegnay dadka ataystiyaasha ku nool ama la yiraahdo waxaan uga jeedaa جروب ملحدين الملحدون المعاصرون ملحدين تا وقت كان جوجا بريغا رب ملحدين با شير جيران لكن ملحدين تا سو كدونا يكون مان جوجا ملحدين تا معاصرين تا مان تا اود له الهي سبحانه وتعالى انه شيروبي انكرسين دفرسين مارت وحا مارتي كتبتا علوم تا مانتا دغا iyo waxa asaaska waa badankoodu noocaas bay aaminsan xoogayna koonka ku leeyihiin maanta bal waxaan dhihi karaa maanta maamulka koonka iyaga xukuma soo sax ma asaatida ayaga ka ah macallimiin ayaga ka ah caruurtanadana waxa wax u dhigaya waa ayaga weeyaan raggaasi waxay aaminsan yihiin waxay diidan yihiin jiritaanka ilaahay alla ma jira bay leeyihiin waxaan iri way ka gaalnimo badan yihiin abu jahl iyo abu lahab ilaahay jiritaankiisa maysan dafirsanayn subxaanahu wa tacaala soo sax ma وربان نصوص بان وصول شيخنا أرد القرآن كانت سرية لابو جروب سدحات باكرة أو أجنوسيين ليرادو أجنوسيين تو وحويا وكون حد هذا وحيليه أنا أقول لهم من إله واجرة إله مجرى أرون منه لكن مركز أخرسيت قرآن ذا وحيليه بالحقيقة وحنا أمسنا على إنه سنشرينه وحن ديده إن دات كان أسكت عنه مركز وحويا سبيس وحن كتجينا ميل مارت dadka diinta haysta ama Allah aaminsan baan maarad agnosnimadu waxa weeyaan bil xaqiiqa waa ilaah inkiritaan weeyaan ma ilaahay baa dafsayin laakiin waxay leeyihiin waa siyaasiyiin weeyaan munaafiqiin weeyaan kooxda marka ateesiyaasha cali waa gaal waa kufaar suraxa kuwan agnosiyintuna waa munaafiqiin weeyaan ma halkeen afku ku cadeeyaan aysan jirinin waxa soo haray kooxda ilaahay jiritaankiisa subhanahu wa ta'ala aaminsan laakiin kooxda ilaahay jiritaankiisa aaminsan laftigoodu in badan oo kamidii ilaahay jiritaankiisa ayagoo qiraya ayay haddana ilaahay u shariig yeelayaan wax kale la caabudayaan wamaa yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikuun weeyaan hada waxa weeyaan waa ilaahay waa qirsan yihiin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaala kale la caabudayaan makhluuqaadkiisa ka mid ah kooxna waa kooxda muwaxidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala keligood inay caabudaan ay ilaahay waafajiyay subxaanahu wa tacaala marka imisaan u qaybina afar qaybood baan u qaybina soo ma afartaa qayboodii ayaa maartay dadku hadda uu yahay sida ogtihiin marka kooxda ilaahay inkirsan dafiran subhanahu wa ta'ala xujada iyo daliil ay haystaan ma jiro waxa weeyaan wax lagu qoslo weeyaan xaqiiqatan laakiin maadaama ay awood leeyihiin oo xoolo haystaan oo koonka maamulaan badankiisa maartay ayaa waxay fikradooda
dad maarata maangaab ah unbaa iska rumaysay ka dhaadhiciyaan laakiin waa wax mudxik weeyaan xaqiiqa waa mudxikaat waxyaalaha ay ku hadlayaan waa mudxikaat weeyaan qur-aankuna ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaasi waa kala dooday maaragtay rububiyada asagoo ilaahay jiritaankiisa qiraya si keliya loo caabudo loo yiraahdo qofku hadduu yidhaha ilaahay ma jiro waxa weeyaan masale caqli ama horta caqliga aad bay uga fogta laakiin adig maxaa lagaa doonayaa ka daaci ahaan deegaankan weliba ku nool inaad aamusin karto maarta yaa lagaa rabaa waxaan kutubta u akhrinaynaa inaan cilmiga barano soo ma inaad midkan mulxidka ahi hadhowbayto shubahaadka uu ku keeni karayo inaad aamusin kartaa lagaaga baahan yahay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam mulxidiinta noocaas oo kale ayaa loo soo diray malaaxidii ahaayeen ilahay jiritaankiisa dafirsan subxaana wa tacaala markaa akhrinaysa laakiin nabi ibraahim xujadooda inta aamusiyey ayaa ilahay yidhi fabuhita alladii kafar waxa weeyaan waxaa laga rabaa marka inaad noocaas oo kale aamusido mar dambe uusan hadlinin ma garanaysaa annagana ku xaqle inaan maaragtay xaqiiqatan muslimiintu ama ducaaddu ay gaaraan deegaan walbana muxuu leeyahay maarata duruuftiisa gaar ah hadda maarata caalam islaami ka hadmayno duruufta aan ku nool nahay oo yurub aan ku nool nahay iyo fikriga caqadi ee faafsan oo ilxaadka ah oo ilaahay inuusan jirin subxaana wa tacaala aasaas u yahay waxaa lagaa baahan yahay inaad xujada qaadatid oo daliilka qur'aanka iyo sunnada nabiga ka qaadatid aayad qur'aan ku akhrin maysid mulxidka dhihi maysid maarata ilahay saasuu yidhi ilahay ma rumaysna kaa yeeli maayo laakiin waxaa laga rabaa inaad socotid calaa dawi ilkitaab aduu kitaabka iftiinkiisana ku socoto lianna ilahay asaga aamusiyey subxaana wa tacaala marka waxaan leenahay saddex masalood ka bixi mayso waa masalada aasaaska ah markuu yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala ma jiro markuu yidhaahdo ayaan leenahay horta saddex midkooda weeyaan adiga laftigaaga ama koonkan aan ku nool nahay jusga u yaraan ka qaadan naftaadan kasoo qaadaynaa adiga laftigaaga waa joogtaa adigu ma joogtaa horta mase ma joogtid waa badihiyan inuu joogo soo ma adigu saddex midkood kama bixi maydid inaad waxa weeyaan sudfa ku timid oo si cidna aysan ku samayn slumb waxaad yidhahdeen maarta sudfa inaad ku timid adoo cidna ku samayn bug iska soo dhacday soo sax maaha iyo waxa weeye adigu inaad is abuurtay waa labo iyo ma garanaysaa in lagu abuuray khaaliqaad leedahay saddexdaas caqligu midna ka saarin maayo mid ka bixi karaysa ma jirto waana saddexda qur-aanku isticmaalay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun waxa weeyaan ma iska yimaadeen shay la-aan miyaa la abuuray mase ayagaa is abuuray labada waxa weeyaan masale saddexaadna waa in cid ku abuurtay masale kaloo imaan karsa caqliga ma ay jirto maarta okay masale markaan soo qaadano slumbi ay yaqaanina waa iska yimaadeen waxay iska soo dhaceen caruurta yararkaahi masale aysan qaadan karinin weeyaan ilmaha qof waalan xataa ma aamini karo haddaa iraado mobiilkan waa soo dhaca waa iska yimid maarta waxa uu leeyahay qofkan u sheegaahay waad waalanta insaankan markaa nidaamsan oo maaragtay isku rakiban oo meel walba cadka la dhigay oo sidan loo soo diyaariyey waa iska yimid horta qofna laga yeeli maayo waxaan leenahay caaqiliintana wixii caqli yar leh waxay isku raacsan yihiin likulli xaadithin lahu khaaliq wax alla wax jira oo yimaadayba oo aan hore u jirin oo yimaada cid keenta bay leeyihiin maarta soo sax maa waa ku dhaaran karaan labadanadu dhammaanteen waan ku dhaaran karnaa maradaas aan wato ama cimamadeydaas in cid samaysay ma dhihi karayo qof ma dhihi karo cimamadeydaa iska timid caqliga ma samayn kara brogramka ku jira mobiilkayga isagaa iska galay meesha cid makaa rumaysanaysa cid rumaysan karta malaha waa majnuun weya ciddii intaas maarta rumaysata marka koonkan nidaamsan iyo adigaan jira waxa weya slumb wax la ma jiraan wax iska imaan karaya ma dhacayaan waa inaad maarata cid kaa dambaysa masaladaas waa masale caqligu insaanku uusan marna qaadan karaynin usan kaa yeeli karaynin marka waxa weeyaan likulli sababin laha musabib sabab kastoo jirta oo xaadisa waxay leedahay cid sababta bay leedahay ma garanaysa waa ina masaladaasi masale naga aad qofka uga dhaadhacsan weeyaan cidna aysan inkiri karaynin oo waadixa jiddan likulli makhluuqin xaadisin khaaliq walikulli xaadisin musabib wax kastoo dhaca waxay leedahay cid sababta bay leedahay almuhim waana masale aan cidna ka murmi karin waa kow waan qaadana horta masalada waxaan ka saarnay waa iska yimideen meesha ma dhici karayso waxaa inoo soo haray masalada la ah am hum lkhaaliquun qofku inuu asaga anaa is abuuray oo yidhaahdo masale anaa is abuuray markuu qofku hadduu odhan lahaa ayadana masale
caqliga insaanku inkirayo weeyaano cidna aan laga dhaadhacsan karay suuq bayd hayso sababtoo adigu intaadan is abuurin maadan jirin cadam baa aheed hal ilcadamu yakhluq cadami ma abuuri karaya waxaan jirin waxa ma abuuri karaya waa maya lianna asaga qofku intuusan imaanin taariikh buu leeyahay shalow yimid waxa weeyaan zamankiisii waa yimaad waxaa inoo soo haray marka inuu qofku inuu leeyahay khaaliq abuuray inuu leeyahay oy misale marka khaaliqa abuuray khaaliq waa laga maarmaan wax kastoo jira cid samaysa waa khaaliq khaaliqaas waa inuu yahay caliim xaliim xakiim qaadirun calaa kulli shayin ilaahay xikmad badan wax kasta la socda magaran wax kasta awooda leannahu suu u sameeyey insaanka iyo koonka soo u nidaamsan yahay bidiqa wax kasta nidaam ku soconayaan ayaa waxaa kusoconaysaa xikmadiisa subxaana wa tacaala okay waxaa soo haray in la yidhaahdo tacadud lkhaaliq ma dhici karaysaa khaaliqyad badan inay jiraan waxaan leenaha ma dhici karayso tacadud lkhaaliq waa mustaxiil caqliga inay cid badan oo wax abuurtay ay jirto liannahu hadday dhici lahayd tacadud lkhaaliq oo awoodo wada saman jiraan wax koonka dhici lahay ma jiraanba sideedaba yani masalan kasoo qaad tusaalan kasoo qaad yar ilaahay hadduu laba ilaah jiraan midna wuxuu dooni lahay inuu ku dilo midna inuu ku nooleeyo soo sax ma marka waxaa la yidhahdo nololna ma jirteen dhibashana ma jirteen marka la yidhahdo maarta wuxuu doonaya waqtiga hadda qabowga noo soo galay mid wuxuu doonaya inuu samar nooga dhigo soo sax maaha waqti kulayla inuu ka dhigo midna inuu baraf nagu soo daayo waxa weeyaan suurtagal ma noqo markay isku qabsan lahaayeen haddii laba ilaah jira law kaana fiihima aalihatun ila allah لفسدتا بالله سبحانه وتعالى ولا على بعض ما كونك وحبا سocon karaa ma jireen haddana hal awood oo meel ka soo fursay aysan jirin waa ilaaha marka awood la wuxuu doono sameeyo subxaana wa tacaala waa khaaliqina jalla wacala waxay maadan daayartanada masalada kale ka dhacaysa ay kala hadlaan waxay tahay inay yidhahdaan oo ilaahay hadduu jiro oo awood uu leeyahay subxaana wa tacaala ilaah kale ma abuuri karaa soo sama asagu ilaah hadduu jiro maxaa ilaah kale maxaa keena soo awood ma laha waa calaa kulli shay qadiir soo ma awood kasta soo ma laha soo ilaah kale inuu abuuro ma abuuri karaa awood ilaah kale su-aashaas waxay tahay caqliga insaanka waxa weeyaan waa jahli meesha ugu dambayday su-aal asalba imaan karta maaha maxaa yeelay su-aasha imaan karaysa su-aasha waxay isu imaan kareen markuu ku leeyahy ilaah kale ma abuuri karaa waa asagoo ku yiri makhluuq ilaah ma noqon karaa ay la mid tahay sababtoo cidduu abuuraahi ma makhluuqa mase waa ilaah waa makhluuq marka su-aal caqliga asalba imaan karaysa ma laha leannu asagoo ku yiri waxay la mid tahay makhluuqu ilaah miyuu noqonayaa bini aadan oo ilaah ma noqon wax la abuuray leannu haddaan iraan ilaah ciduu abuuray ilaah kale ma abuuri karaa markaan leenahay ilaahaas la abuuray waa makhluuq asaga qartiga qiraya makhluuq weeyaan waa cid la abuuray weeyaan waa cid la abuurtay ilaah ma noqoto waa mustaxiil weeyaan okay nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam gaaladana ku badan da'yartana waxyaalaha laga dhacsiyo muhiimka aan rabo inaan xogaa kala niqaasho masalada ah in la isweydiiyo la yidhaahdo dee ilaahay asagaa koonka abuuray oo ilaahay yaa abuuray nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam masalo ay maartay dadku waxay oran doonaan waxay oranayaan shaydaan baa inta idin yimaada laannu gaaladu waa shaydaanmo weeyaan bal shaydaanku waa ugu xun weeyaan xaqiiqatan sababtoo ah shaydaannimadooda waxaa ka mid a xaqiiqa inta arkaan oo ay u jeedaan ayay maaragtay ka been sheegayaan wamaa yajxadu biaayaatina ilaa kullu khataarin kafuur buu ilah yidhi subxaana wa tacaala ha u malay qofkaad wax ka qaadanayso waxaan kuu sheegayaa qof caadila mah daacad mah int markay u caddaato awoodda ilaahay ayaa wuxuu isku dayayaa awoodda ilaahay siduu dadka uga indhasaabi lahay ayuu isku dayayaa marka ilah wuxuu leeyahy aayaadkanaga ma diido ilaa kullu khataar waa maxay siqatu mubaalaqa khataar bimacnaa makaar kadaab aayaadkanaga ma diido ilaa beenlow kasta mooyaane marka waxaan leeyahay waa hum khataaruuna bilxaqiiqa dadka mulxidiinta ujeedid waa beenlayaal dadka ugu beenta badan weyaan makhluuqa ilaahay subxaana wa tacaala xaqiiqa ay og yihiin ayay waxa weeyaan ka indhasaabaan koonka ay isku dayayaan ayagoo kale ujeedooyin kale marka waa khataarin oo kafuurin oo gaalnimo badan weeyaan dadkaas marka maadaama yihiin noocaas oo kale ay been badan yihiin waxay isku dayayaan inay shubhad ku abuuraan oy ku yidhahdaan okay ilaahay subxaana wa tacaala huwa alladii khalaq suu nabigu sheegay alayhi salaam yaati shaytaanu ilaa axadikum فيقول الله خلق كذا والله خلق كذا كان إله أبوري كان إله أبوري ومن خلق الخالق إله يا أبوري أسجى سبحانه وتعالى طبعا وفكرة شيطانية نبغى شيطان بمعنى مقرنسة نبغى وحول عليه السلام فلينتهبوا نبغى مركز منكم إيش جاروا قفوا هكتشوا محول نبغى وليه هكتشوا عليه الصلاة والسلام لأنه عقلك إنسانك أي ديدة يا مثل ذنب وحويا وإنه استاجع عقلك ما شاس هذا كو إرادة كو محاكه الرية هذا ليس سما يعني كو صفر معنى كو محاكسي الرية هذا كو إرادة إبر محاكه الرية إبر ولا نهاية صح
dayib waxa weeyaan marka huwa alawal waa inaan awal waxa weeyaan wax ka horeyn karaya ma jiraan haddii aynu nidhaahno waxbaa ka horeeya waxaan gelaynaa tasalsul caqligu laabudda uu meel gooyo haddaad tiraado waxa weeyaan ilaah yaa abuuray kan kale yaa abuur kan kale yaa abuur xaggaa tegaysaa waxa weeyaan dawr iyo tasalsul weligeed aan dhammaanayn ayaad gelaysaa marka caqligu insaanku wuxuu leeyahay meeshan waa inuu istaago maar falyantahi waa inay noqotaa waa inuu boos istaago ay jirto waa inuu alawal alladii laysa qablahu shay aw gaara insaanku waa ilaahi cid ka horeysa aysan jirin subxaanahu wa tacaala huwa alkhaaliq walaysa lahu nihaaya walaysa lahu bidaaya subxaanahu wa tacaala marka caqliga insaankaa keenaya shay haddaan aragno maaragtay tasalsul shay isdaba socda haddaan aragno welig maan ku dhammaanayn mira kama dhalan karaan koonkan dhan ma dhici karo haddii maaragtay masaladu sii daba haysato nin baa la xiray ninka la xiray xabsiga si looga sii daayaahay nin baa amar soo bixiy soo ma kan amarka soo siiya haddii mid kale amarka sii siinayo kanka amarka sii siiya kan kaleto amar sii siinayo ninka xabsiga maga sii daynaa yani ma dhammaanayso meel ku dhammaado ma laha waa inay jirto cidda koowaade maaragtay ka soo fulaa amarku sida ninka maarata meesha lagu sii daaya ka tusaale kale usad kuna garanaysaa hada khabasa alkhubs waman khabasa alkhaabis su-aal soconaysa maaha caqliga ma noqon karayso waa inay jirtaahay bidaaya nihaaya waa inay jirta almuhim waxaa uga jeedaa masaladaas masalada na tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala annahu alkhaaliq jala wacala ilaahana abuuro oo koonka ha abuuro waana qur'aanku soo galdooda am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaqu sama markaa kabacdi naftooda laga bilaabay ayaa qur'anka wuxuu la aada koonkan weyn dadka tusaale uga soo qaata insaanka kabacdina koonkan ka weyn insaanka ma garanaysaa noocyaasha le kala duwan leh nidaamsan koonkani wuxuu guddigiisu markhaati ka yahay ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala insaanku iyo koonka iyo waxa ku jiraana ma awoodi karaan quraanjo yar iyo dhuracso yar iyo maaragtay cad yar inay abuuraan yaa ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lahu ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaba ma abuuri karayaan wax alla waxaad alla koonka la caabudayo alla ka soo haray ma abuuri karayaan waxaa la yidhaahdo tiksi ma abuuri karayaan iska dhaaf inay tiksi abuuraane tiksi hadduu ka dhaco sonkortooda iyo xoolaha haystaan kaba dhacsan karaan ضعف الطالب والمطلوب حقيقة واساس ويان مركا هل من خالق غير الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه كونك إلهي بقى سبحانه وتعالى أبو ري لكن وحا على كسوك وحي كليه كان مقرنا يسا مركا نيكا أتيستها ملحد كمعاصرك ما أنت جوغاهي مسألة خلقك مركا ليرادو وحويا عرفت وحيسان رميسان بوضاتك مارت أو سوق قينية laakiin musiibadu waxay ka dhacday inaan maaragtay si maangaabnimo ah waxyaalahaas looga rumaysanaya dad badan ay maqlayaan dhegaysanayaan laakiin waa hadayaan caqlina ma aha cilmi ma aha maskaxda insaanku waxay qaadan karto maaha masalada marka mualifku wuxuu ka bilaabay aasaaskaas uu ka dhigay ilaah subxaanahu wa tacaala waa asagii kan ina abuuray weeyaan masalada khalqiga ilaahay haddaan aqirno ilaah inuu ina abuuray asagu subxaanahu wa tacaala khaaliqul waaxid uu yahay subxaanahu wa tacaala waa inay ilaaha jala wacalaa inta ina abuuray abuur keliya ma ah ee wuxuu leeyahay warazaqanaa ilaah subxaana wa tacaala asaga ayaa ina arsaaqay subxaana wa tacaala ilah hadduu ina abuuray jala wacalaa markuu ina abuuray inagama tegin saas khalqi keliya ma ah masaladu waa inaan nicmadiisa garanaa iyo fadliga uu noo galay iyo ixsaanka uu noo sameeyey taasina waxay keenaysaa inaan jeclaano ilaahay subxaana wa tacala raxmada u siiyey asagaa ku irsaaqay jala wacalaa waxa uuna siiyey intaanan imaan markaan hooyada caloosheeda ku jirnay intaanan imaanin adduunyada ayuu noo sii diyaariyey qalab alla qalabkaan isticmaali lahayd subxaana wa tacaala jala wacala xataa baridaadaas ma ujeedaa waxaa la ogaayay inaad dhulka ku fariisanayso yaa dhulka yaa bahasa saa u goglay baridaada xataa habkaa u fariisan lahayd weli maadan fadhin maadan gaarinin maaragtay inaad fariisato laakiin waxaa lagugu sii talagalay meeshaad ku fariisan lahayd kursigaaga dabadaa lagu geliyey iyo gambarkaaga habkaad u fariisan lahayd meeshii ma garanaysaa raasinku mari lahay weli maadan cunin laakiin waxaa lagu sameeyey maaragtay habku mari lahay meeshii uu mari lahay waxaa loo sameeyey qalabkii shiidi lahay waxaa loo sameeyey caliyadii iyo maaragtay qoyaantii wixii qoyn lahay waxaa loo sameeyey dhinacii dhadhamin lahaa markaa dhadhamintu intaan kaliya weyaan laakiin wuxuu leeyahay markuu dhaafo raashinku ausan kuu dhadhamayn wixii ka dambeeya laakiin saad kuu soo jiito raashinka cunto afka ma garanaysa intuu kugu jiro dhuunta hadduu dhaafo khalaas ma garanaysaa ma qaraar yahay mise ma macaan yahay walidaalika markaan rabo in dadka maarata la dhaafsiyo meesha qaraarka wax dhadhanka waxaa la yidhaahdo kaniniyada qaarkood waa aad bay u qaraar yihiin sida kan la capsulka waxa weeyaan waxbaa loo geliyaa qofka jilicsan
waxa weeyaan soo u dhaafo meesha dhadhanka markuu dhadhanka dhaafo waa qarxa waa ma qarxaya markuu dhaafo ka bacdi ma dareemi karis calooshaada ku jira waa qaraar yahay laakiin ma dareemi karis ilaahay subxaanahu watacaala maxuu kugu talagalay meel kooban oo dhadhankaaga ku saabsan iyo jirkanaga noocyaashiisa wada mucjisada ah asaga dhammaantiis horaa maartay markaa u fiirsatid cajiib weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala wa fi anfusikum afalaa tubsiruun war naftiina miyaadan arkaynin إله قلب كائن سيء سبحانه وتعالى إن لها مارتي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلهي سبحانه وتعالى إيش هذا لها قلب كأكون ركب نوع ركبين يعني وضنها جالس جراعة يا هبين كدات شيفت واسك صعدا وديجي بصيرة يا مارتي استاجم ماي كم حرة شيف كاجا كم حرة ما أنتوا إله كعيي إلى ما أنت كده ما تروح واسك شغيرة متورك يسمى جرانيسا إلى أساس كوس نوسمي سبحانه وتعالى قطرين سنة تصيرية خالق النوع عسن أرزاقي أصل كوحي الإنسان كإنه سجود لدعه إلى سجود سبحانه وتعالى يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وقرأ إلهي أودي سبحانه وتعالى نعمة إلهي وسي سبحانه وتعالى لكن ما وحي هاد إله إن لو أبال الجودو الحاد إنكرتان جرتانكيس أما الله قشك إلهي جرتانكيس سبحانه وتعالى خالق ذنه أبو جل وعلا إن الإنسان لظلوم كفور إنسان هو ظلم بدنيا وأنا قال لي ما بدنيا حقيقة وطبعي نوع عاصر كلاه مركز شيخ وعنون ليه هو رزقنا إلهي أسقى إن أرزاقي خلقي ونعمة الخلق والإيجاد ونعمين كنعمة أقوى وين وين إلهي وأنا أبوري دي بدينا وحونسية نعمة ليرادو نعمة الرزق رزق نعمين كيس نعمين كرزق هذا تريدو الرزق كليل الله ما يقانو مارتي راشن كالعنو لما يرادو الطعام رزق معه الرزق أعم من الطعام العلم رزق والحكمة رزق علمي هو رزق مسكح على القصية ورزق حكمة ورزق ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلهي سبحانه وتعالى ما غفق لسيه خير فلان بان بلسيه أكسجين كأن نفسنا هوذا أن نفسنا والرزق إلهي من أعظم عطاءات الله سبحانه وتعالى إلهي سيتي زمده وين ويان سبحانه وتعالى رزق ونسيه ومن أعظم أرزاقه سبحانه وتعالى الإيمان والهداية إيمانك هي هداية أي أعظم رزق الله سبحانه وتعالى كمده رزق إلهي سبحانه وتعالى marka erga ila risqigu caruurta wanaagsan haweenta wanaagsan umriga wanaagsan yani caafimaadka ilaahayna siiyo subhanahu wa ta'ala hada kulluhu من رزق الله سبحانه وتعالى رزق إلهي بكمديها رزق بصحة ورزق بعافية ورزق بأولاد ورزق بعلم ورزق بحكمة قف كسوسما انت بو ارزاق إلهي وان لكوبي كريم سبحانه وتعالى نعمك إلهي نعمة الرزق ابو إلهي نسي سبحانه وتعالى الخلق ثم رزقنا سبحانه وتعالى إلهي بأن أرزاقي ثم ما حكم إلهي سبحانه نعمة كرو نسي ونعمة الهداية والإرشاد أو مؤلف كنت الماميو رحمة الله عليه وكدري أوليه ولم يتركنا إلهي إن جمت تجنين سبحانه وتعالى وين أبوري وين أرزاقي عقل جيب ونسيي وحويا حبنيه بونسيي إن وحمد قلنا ما تنسيي وأركينا مقالكي يأرجي يقلبك علمك لأنه أنت كتشرنا هو إذا أركنا أنا أبوري أنا لسميني فتبارك الله حسن قال قلبك وحبرشنا ما تنقول ركبه إنه حوين دي بالغور ركبي دقي بالغور ركبي يعني وحويان عربك بالغور ركبي قلب بنا نجلي سبحانه وتعالى وان إله وانا كاني لكونا كاني جل وعلا أنا قول ما تأود لهين لكن قلب كاسة مارتا استقبلنا بنعم الله هذه الأجهزة نعمك له وعن كسوة قابلنا أجهزة مقرات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قلب كاسة وقلبك علمك أنا مارتا نودي إلهي سبحانه وتعالى وحبرانه وإلا كسوة قادنين إن لا ودقلا وعرب لا ومقرات سيب وحبريسة ودعيك أنا سما قلبك أما مسكحان لهين أما قلبك لا قاضي لكن ونعمل إلهي سبحانه قلبك القوسي ركب أنا أقول نوعاس ديار أيوسا ولم يتركنا إلى نجمة تجين سبحانه وتعالى يتركنا نجمة تجين هملا بور هملا أي حال كوننا هاملين وكلويان وما يتركنا هملا نعم يتركنا هملا مفعول كان كلاجح علينا يا هملا صح ما لم يترك الله بنا إله نجمة تجنين سبحانه وتعالى على نجمة تجنين همل أنا ما قرايسة ما حنانا الآن حال أن هاي إله سبحانه الله حناني جل وعلا ما حنقول أرجع همل اللي يراده إلو يا حنانه عربت وحي أرجع كأنين حولها مركا الله إلى علينا لسيد دايو
مثلا waxay yiraahdeen oo kale هملت الإبل أو هملت الإبل بمعنى تركت تسرح بلا راع geeli baa la sii daayey cid la jirto xanaanaysa ma jirtaa la yidhahdaa ma garanaysaa hamalka waxaa la yidhaahdaa inaad almatruuku bilaa cinaaya shayga la sii daayo ayagoon xanaano aan lahayn baa la yidhahdaa sideeda luqada carabiga shayga hamalka ah meeshana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu ina abuuray oo ina keenay ilaah jalla wacala ilah waa ina xanaaneeyey wuxuu inoo sheegay waddadan qaadi lahayn wuxuu inoo sheegay wixiina anfaca wuxuu inooga digay wixiina dhiba subxaana wa tacaala wuxuu inoo diyaariyey daar waaweyn buu inoo diyaariyey subxaana wa tacaala rasuul buu inoo soo diray ma garanaysaa sida mualifka uu tilmaamayo ilaah jalla wacala bini aadamka asagoo noocaas oon xanaana la-aana kama tegin jalla wacala bal arsala maya wuxuu inoo soo diray ilayna arsala wuxuu soo diray rasuulan rasuul buu ilaahay soo diray subxaana wa tacaala rasuulan rasuulku waa rasuul nakiradu waa lilcadama nabi weyn buu ilaahay inoo soo diray subxaana wa tacaala nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu inoo soo diray hanuun iyo hidaayo la soo diray huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq ilahay inuu maaratay nahago wadada saxdan uu ku tilmaamo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkan ugu soo diray arsala rasuula bilhuda hanuun buu la soo diray iyo wa diini alxaq wadaaciyan ila allah biidnihi wa siraajan muniira rasuulkaas oo ah dadka ilaahay ugu yeeraya xaggiisa wadada u cadaynaya wadada iftiinkii iyo ilayskii iyo tiriigii la raaci laha isagoo calayhi salaatu wasalaam هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بإلهي تدكوا إلهم صنايين وإن كانوا من قبل لفي ضلال بعد عد بكجرين بنادمكم لكن إلهي نعمدي سوحي كانت سبحانه وتعالى إنه سنهمل نقدقين إلهي إنه صوت دري رسولك إنه صوت دري وإن كانوا من قبل في ضلال وآخرين منهم وأنيجي أديجا هذا حويان إلهي سبحانه وإنا إيمان دونه وآخرين هو الذي بعث في الأميين أميين تكو عطفان تاي آخرين إلهي وحو أصوى دراي رسولك كوح كالنا وأصوى درايو لما يلحقوا بهم ولي أن سوق قارنا نورين لكن إيمان دونان ومخلوقات وأجياش كدن بيا رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة الله نولادا وأنت كدن بيسي تاسو تصنع إني راعان أي تاي أصلك كوحة سبقان لأنه لاحقين بانهاي منهن مستعنفين kuwa iska bilaabanaya manihin ee laaxiqiin baan nahay ayaga un baan raacayna wadadoodii maartay lagu badbaadi karayo markaasuu ilahay wuxuu ku khatima ayadda dalika fadlu llahi yu'tii man yashaa wallahu dul fadli cadiim waa fadli iyo gallad ilahay ciduu doona u siiyo ilaahay kii gallad weyn weeyaan qofka hadduu waayo hidaayadaasi hadduu waayo waa qof maarata khasaaray adduun iyo aakhiraba khasaaray weeyaan ilaah rasuulkaas buu inoo soo diray rasuulka calayhi salatu wasalam nabiyullahi maxamed oo xaqaasi ilaahay usoo dhiibay subxaana wa tacaala nacam maxaa yeelay ujeeddada laga leeyahay nabiga marka lasoo diraya calayhi salaatu wasalaam dhowr masaladood muhiim an weeyaan insaanku caqligiisu ma gaari karo inuu garto ilaahay maxaa raali geliya subxaana wa tacaala habkee alla loo caabudaa laa yastaqilu bihi alcaql caqligana laku rakibay ma maarata ma gaari karayo inuu ogaado maxaa alla raali geliya ilahay maxaan raali gelin waxaan u baahanaa marka rasuul loo waxyoodo in ilahay inoo soo diray subxaana wa tacaala labo dadku waxa weeyaan haddaan nabi loo soo dirin uusan nabi xujada lagu ogeyn maalinta qiyaamada waxay heli lahayn xujo bay heli lahayn ninkan gaalka ahoo maaragtay ataystaha ah oo ilaahay dafiray asagoo cilmi ilaahay siiyey oo caqli siiyey oo wax kasta siiyey ee nabiga dafiraya nicmo waxa weeyaan ama rususha dafiray ama diinta ama ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasi maalinta qiyaamada wuxuu odhan lahay maa jaa'ana min bashiirin walaa nadiir عدنا نوما شيغنين نوما مارتا نوما إيمانين لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل لكن وحن قرأنا مرك إلهي سبحانه وتعالى حق سودة شيء أو عديي أو قفك عقل جلسي أو وحكسل مارت قعنت اللي جريي إنه بري أو سن حجة هلين مارت أو حجيستو أو ده مارت محل أي عقابة يا أمام محل أي حسابة يا أمام محل أي عذاب يا حب أو كله بري موصلها لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ما يكون لنا مركا يلي آيات محا رسول نوغسو دي ويسي نوغسو دير ويسي أو مركا آيات كان نغا أن رعنو بالآدمكو إناي مصالح دو الدنيا مدى آخرو إلهي سبحانه وتعالى صو إنو برو كونكا إنو برو وحي مصالح نوغو جرتو أيا رسولك يلا لو صو ديري أيا كميدا مارتي نبي قاسو نبي حريص بدن وابن آدم كمارتي ودمريا سيلا كشي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعمة إله وحكمنا مكان رسول كاسي إنه كدغاي رسول أسو ديبي دليل على العد goynaya nabinimadiisa inuu run yahay
aan laga shakinin. Marka ilaah wuxuu soo siiyey subxaanahu wa tacaala aayaad iyo bayinaat iyo aclaam nubuwa waxaa tusinaya nabinimadiisa iyo mucjizooyin buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. marka rasuulkaas buu alla noo soo diray subxaanahu wa tacaala. masaladaasi waa masale marka muhiim ah. qofku marka waa in la yiraahdaa haddii alla rasuulkaas soo diray subxaanahu wa tacaala, dadku waxay noqonayaan laba midkood: inay raacaan rasuulkaasi, ay rumeeyaan wadada u sheegay, ay qaataan, iyo inay beeniyaan. hadday qofkii beeniya iyo qofkii rumeeya waa ikhtiyaar, isagaa dooran karaya. ilaahay ma qasbayo subxaanahu wa tacala. markuu aalaadkiisa iyo nabina soo diray, xujadina ku ogey, adiga labada wado midaad qaadayso aday ku taalla. waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur. miraheedaad guranaysaa. maxaa leeyahay qofkaani gaalka ah oo diiday rasuulka loo soo diray, xujadii loo soo diray, ilaah subxaanahu wa tacaala maanta qiyaam markuu ciqaabo ee cadaab sarmadiya la geliyo ama joogto ah, waxa weeyaan gar uma laha in la yidhahdo maxaa loo cadaabaya. dadka gaalada ah waxay fikradaha ay maarata ku akhriyaan dadka waxaa ka mid ah ilahay muxuu cadaabaya dadka subxaana wa tacaala. ilahay muxuu cadaabaya dadka jala wacala. haddii gaalnimada loo cadaabayo se maxaa gaalnimada gaal budi ahayaan maxaa ciqaab asarmadiya u yahay. masale waxaa ka qarsoontay maaragtay galku qofku jariimada dembiga u galo iyo ciqaabka ka dhashaahe waxa weeyaan islama eka maarata soo ma. nin hadduu nin dilo waxaa laga yaabaa inuu ku dilay 1 daqiiq, laakiin maxaan leenahay 1 daqiiq kaliya in la ciqaaba miyaan leenahay soo ma. 1 daqiiq hala ciqaabo miyaan oranaynaa 1 daqiiq dilay. malaayiin dada waxaa dhici kara inuu 1 daqiiq ku dilo ama maarata boqolaal hal mar ku dilo. marka ciqaabka ka dhalanaya jariimadu intay la eg tahay buu ciqaab ka dhashaa maahane intuu maarata falku yahay maaha. macnaheed maarata jariimada uu galaa kufriga gaalnimada u galay ayaa jariimadaasi waxa weeyaan waa cadaab sarmadi ah. ciqaabkeeda waa cadaab joogto ah, weligiis joogtana marka gaalnimo ku dhinta. sidaan maaragtay ayaad sida noo imaan doonta maarata cusra ku soo xiga. waxa uu leeyahay marka mualifku raxmatullaahi caleyh wuxuu yidhi faman ataacahu, haddii rasuulka ilaahay noo soo diray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ou xaqna noo soo diray, faman ataacahu rasuulka qofkii ateecah dakhala aljanna, jannada ayuu gelayaa. faman ataaca waa nas qur'aanka weeyaan. hadalkaani maaha hadal sheekha kaliya maaha. waman yudic illaha warasuula faulaa'ika bal maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu aayaad fara badan oo maarata lamida ayaa jira. waman yudic illaha warasuulahu yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar wadalika alfawzu alcaziim. soo ka mid maaha aayaadku aad bay u fara badan yihiin qur'aanka ilahay ku celceliyey jala wacala masaladan. marka faman ataacahu dakhala aljanna waa aayaad qur'aanka fara badan baa maarata. faman ataacahu qofkii ateeca rasuulka. yaa ii sheegaya ma macnaa taacatu rasuul. haye daacatu rasuul cunsuriyay leedahay, qaybay leedahay. haye waxaan rabaa inaad kala goysiin. kow yaa bilaabaya. haye cabaas kow maxaa tiri. aطaacatu rasuuli huwa itibaacuh, waa raacitaankiis. kow haye yaa kale tafadal. daacatu fima amar watasdiiqu bima akhbar وانتهاء أو كف ما نهى عنه وزجر إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. هذه هي طاعة بالحقيقة. الديعتانك هو أساسه ويان. من حيث الأخبار أو هو يسوى التصديق وإن الرمية ويان. من حيث التشريع وحويا الله وحو أمرينا إن فليه وحو ريابنا وإن لقهره. من حيث العبادة وإن الله لقوا عابدين إلى وحو لي مدنو يعني. وين أمرك وأخبارته وين الرمية وحلو وحنا نغشى علم الغيبيات كآخر وحي ما عندنا حساب بعثك نشورك وين ما قرنس وين الرمية ويا حكى التشريع أنا أسكال وحي ولي ميت ما هو أساس سمية أمركين ولا فليه وحنا يركت شوقنا وين كهرنا الله حدا عابديننا وين أسجى مارتي وقدم بيننا وضده ولي ميت وعلى كوي بكرة طاعة الرسول أنت أسبيل أي مارت خلاصة وين قرنيسا ما قرنيسا وأنا سداس مارتي ولا لكو شيء طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مركا أسر طاعة النبي إنه عليه الصلاة والسلام وأساس ويان. مركا قفك أطيعه رسولك دخل الجنة جنة أيو قليا وجواب يا شرط جيده حداد شرط كان لاتي ماضو حويا تنبال هذا نبي كل أمتي يدخلون الجنة
إلا من أبى ummadda dhammaantood jannaday gelayaan ilaa cidii diidda mooyaane waman yaabaa yaa rasuula allah qaala man adaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qofkii aniga adeecana waxa weeyaan qofta jannadoona weeyaan qofkii maarata ay adeeci waayana waa jannadiid weeyaan jannaduu diidan yahay waxaa weeyaan naar mooyaan meel kale ma laha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray inuu wadadaas caddeeyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa nusuus fi lqur'aan wa fi sunna yani taafixa lama koobi karayo nusuusta kitaabka iyo sunnada arrintaasi ku soo aroortay aad bay u fara badan yihiin ilahi wuu ku celceliyey subxaana wa tacaala laakiin dhinaca kale waman casaahu qofkii caasiya rasuulka calayhi salatu wasalaam dakhala annaar naar ayuu gelaya qofkii nabiga caasiya calayhi salaatu wasalaam weliba cisyaankaasi waa darajaat laa shaka fi waa darakaat kala duwan weeyaan marka qofkii ku amar diida nabiga calayhi salatu wasalaam inuu rumeeyo waxuu la yimid iyo ma garanaysaa inuu maaragtay maqlo amarkiisa iyo inuu ka haro wuxuu reebay iyo maaragtay waddadiisi waddo ahayn qaaday xagga cibaadada qofkaasi waxa weeyaan naar buu gelaya naar baa loo sheegay ilaah suu yidhi subxaanahu wa tacaala waman yacsi allaha warasuulahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin ayaa ka mid aayaadka qur'aanka ilahi subxana wa tacaala qofkii caasiya ka amar diida allah iyo rasuulkiisa naar buu gelayaa weliba asagoo ku waaraya naarta ku waari doona yacni cadaab oo dullaysana way cadaabkiisu weliba cadaab yuhaanu fiihi lagu ihaanaynayo weyaan lagu dulaynayo weyaan leannu cadaabka gaalnimo ku galay gaalka cadaabnimada lagu galan waa cadaab ihaano weyaan qofka lagu ihaanaysanayo aayaadka qur'aankana ayaduna noocaas ku soo arooray aad bay u fara badan yihiin waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina baadicad buu lumay maa garanaysaa nacam iyo aayaadka lamid ah dayib marka arrintu markaa waa noocaas nabigu waa faasilkii waa kala saare weeyaan waman casaahu dakhala annaar qofka nabiga caasiya calayhi salatu wasalaam naar buu gelaya nabiguna waa calayhi salatu wasalaam waa kala saare weeyaan dadku ayuu kala saaraya loogu talagalay inuu kala saaro asaga ciddii raacday ciddii kale gaalnimo gaal iyo islaamna waa meeshaas lagu kala baxayaa dadku ay kala baxayaan gaal iyo islaam lagu kala noqonaya masaladaasi waa marka intaas uu sheegay mualifku raxmatullahi caleyhi aasaaska ah soo kooba hadalka ayuu wuxuu u galay almas'alatu athaalitha masalada saddexaadi masaladii horey ka dhalanaysaa ayaday ka dhalatay oo waxa weeyaan tawxiidkii weeyaan ana allaha laa yardaa الثانية عفوا مسألة الثانية مسألة اللبات وحوية أن الله بأن الله ألا لا يرضى رال نقول مايو إلهي سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد أن يشرك بأن يشرك إلا لو ذاتيو أحد عدنا إلا لو ذاتيو معه مع الله ألا لتنكي سبحانه وتعالى إلى رالك نقول مايو ولا يرضى لعباده الكفر إلهي الدومدي سرال لكون نقول مايو قال لما سبحانه وتعالى وإن لو حرالة كيهي إن كلي العابد سبحانه وتعالى نعم إلهي سبحانه سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم إلهي سبحانه وتعالى داد قالوا دين إلهي كفرسين إلهي دين مباهنا سبحانه وتعالى عبادين كذلك مارتي أباهن يا الله مباهنا سبحانه وتعالى لو ويل مرة أبو حلميسين haddaad gaalowdiinna ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay raalli idinkaga noqon maayo gaalnimadaas maarta walaa yardaa raalli noqon maayo licibaadihi addoomaysan kufra gaalnimada laakiin qofkii shukriya oo alla kaliga caabudaa subxaana wa tacaala qofkaasi ayaa qofkii raalli ahaanshaha ilaahay helaya qofku markuu raalli ahaanshaha ilaahay helana waxa weeya meesha uu raabay u gaarayaaho radia allaahu canhum waraduu canhu dadka la yidhi dhammaantood dadkii maarta ilaahay subxaana wa tacaala jannada iyo khayraadka ugu talagalay weeyaan subxaanahu wa tacaala saad darteed ba uu leeyahay ana allaha ilaahay laa yardaa raalli noqon maayo an yushraka in la wadaajiyo macahu la jirankiisa axadun cidna in lala wadaajiyo qur'aanka ilaahay adeegsaday subxaana wa tacaala macnahaas in fara badan oo ka mid ah faman kana yarjuu liqa'a rabbii falyacmal camalan صaalixan walaa yushrik bicibaadatihi axada annakiratu fi siyaaqi الnafyi tacum marna waxa weyan fi siyaaqi shardi bay ku timaadaa marna waxa weeyaan fi siyaaqi nahyi bay ku timaadaa intaba qur'aanka ma garanaysaa falaa tadcuu maca allahi axada ilaahay la jirankiisa cidna ha caabudinina oo ha baryanina maarta ciddoo doona ha noqoto axad
marka waxay doonto ilahay cibaada saas kale subxaana wa tacaala raalli marka ilahay ka noqon maayo cibaada cid lala wadaajiyo fi cibaadati laakiin waxaa meeshan loo jeedaa ridahani waa ridaa oo sharci ah sharci ahaan ilahay raalli ka noqon maayo ama qadaran qadartu waa nooc kale weeye ilahay isaga qadaray subxana wuxuu qadaray ma jiraan laakiin sharci ahaan ilahay raalli kama aha nabiga wuxuu soo diray binaadamku u amray in alla keliya hala caabudo subxaana wa tacala sharci waa saas weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacala raalli ka noqon walaa yardaa licibaadihi lkufr wain tashkuruu yardaw lakum ilahi yiri marka mualifku muxuu yidhi markuu sheegay ilahay cidna cibaadana la wadaajiyo ilahay ma ogola raalli kama aha ayuu laba masalo inuu ku caddeeyo darteed buu daba dhigay oo sidii maskaxda markay soo gelin buu kuleeyahay cibaadada ilahay marka la joogo يعني قف كان با إلهي أكتيس قيمة كل قيمكم ولا همياشة كم شرط مرت إن النبي عابده ينا طيح عابده أسكمت صح حق عبادة إلهي وحويا فرق كلامه هذا الدرب عابده هذا الضمير عابده أسكمت هذا يوقع تمرت إلهي أكتيس عباده يعني إلهي بقى قف كان بقى قف شرف له ما يشمل طال العبادة وحليلاته هذا ترى جبريل أنا عابده وحويا نك جبريل عابده إياه نك نجح عابده أسكمت gaalnimada waa isku mid bayaan maqlanaysaa marka masaladaas waa masale muhiim ah in lagu baraarugo sheekuna ku baraarujiyey dadka qaarkood dad baa qalbigooda ayaa cadamo ku leh laakiin cadamada iyo maarta ay ku leeyihiin iyo weynanka ay ku leeyihiin waa inaysan keeninin soohdimaha ilaahay la geliya subxaana wa tacaala qofkii soohdimada ilaahay geliya waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan oo ilaahay sukadiisa cibaado ugu daraahe waa kufri waa ku gaaloobaya maarta qofkaas waxa waa ku kufrinaya waa isku mid waxa doonta caabid noo darajada doonaan ha joogaan sheekh hadaa rabtid ka dhig ama nabi ka dhig kristaan waxay ku kufriyeen aasaas u ah waa cibaada nabiyullahi ciisa waa nabi ulcazmi min arusul ka mid ah weeyaan sama waid qaala lahu ya ciisa bna maryama anta qulta linnaasi ittakhidunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah marka nabi ciise cidda caabuda iyo cidda dhagax caabudaah waa isku mid labaduba waa kufri weeyaan ee gaalnimo weeyaan ciddii ka sokeedan cid kastana waa saas mayaan kalama laha marka darajo la yidhahdo cibaadadu kana xoogaay karoonkan ma jirto waa isku meeshii weeyaan marka masaladaasi ayuu ku baraarujiyey mualifku raxmatullahi calayhi uu leeyahay walaa yardaa an yushraka macahu axadun walaa yardaa raalli kama ahan an yushraka in la wadaajiyo macahu la jirkiisa axadun cidna fii cibaadati ilahi cibaadadiisa subxana wa tacala cibaada hore usoo sharaxnay waxaa loo jeedo markaasuu yuri laa malakun muqarab malagun taas waxay ku cadfan tahay naa'iba faacilka an yushraka macahu axad axadkaas ay ku faalkan ku cadafnay markaasaan leenahay walaa yardaa an yushraka macahu malakun muqarab ilahay raalli kama aha in cibaado loogu daro malag la dhoweeye maarta malaa'igto ilahay uu jecel yahay jibriil iyo mikaa'il iyo israafiil iyo ma garanaysa caalamkaas ilahay cibaada loogu daro raalli kama aha walaa nabiyun mursalun nabi lasoo dirayna in cibaadada loogu daro walow kaana nabi maxamed ba ha noqotay calayhi salaatu wasalaam ciddii nabi maxamed caabudaahi waxa weeyaan waa ku kufrinaysaa ciddii nabi ciise caabuda waa ku kufrinaysaa ciddii nabi muuse caabuda waa ku kufrinaysaa cibaadada ilaahi subxaana wa tacaala intaas mid loogu dari karayo ma jirto maxaa yeelay waa shirki iyo kufri weeyaan sidaa darteeda dadku waxaa waajib ku ah inay ka fogaadaan iska ilaaliyaan maaragtay nabiyada iyo xadgudubka ay ku sameeyaan dadka qaarkood ambiyada iyo dadka saalixiinta dad baa ku xadgudba maarta marka qaarkood waxa weeyaan isaga darmin inaad jeclaato inaad caabuddo waa inaan isku darmin waa inaysan la siin baryada iyo hogaansa yani u dhilahay baryada iyo tuugmada iyo gargaar weydiisiga iyo koonka in wax laga siiyo iyo maamulka waa ilaahay baa iskale subxaana wa tacala cibaadooyinka ilahay baa iskale looma sujuudo looma rukuucidan ilaahay lagama gargaar weydi koonkan ma garanaysa carruur isii caafimaadi ma garanaysa dembigayga dhaaf lama yiraahdo makhluuqa ma garanaysaa laakiin dad baa ambiyada iyo rususha ku oranaya dembiga naga dhaaf sax ma inuu soo gurmo inuu soo gargaar islaantii baa dhali weysay iyo wixii lamid ah maaragtay carruurna si adiga waxyaala noocaas ereyadaasi waa maaragtay masalada khatiir bay leedahay waana shirkiga weyn oo magaran kufriga diinta looga baxayo nabiyaashuna waxay u yimaadeen inay kufriga la dagaalamaan oo ilaahay keliya hala caabudo yidhahdeen waxay u yimaadeen faman kana yarju liqaa rabbii falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbii axada ilahay cibaadadiisa cidna hala wadaajin inay yidhahdeen waxaan malaynayaa waqtigii aan qaadan lahayn raastada la gaarso ma xamis adigaa waqtiga i hayaan ma saacad ma firin